maantaba meeshaan joogno shalay meynaan joogin soo saas ma shalay meeshaan joognay maanta ma joogno meesha maanta aan joogno insha Allah bari joogi mayno sooma sababtu maxay tahay qadiyada dhismaha aadamaha waxa la yiraahdaa waa qadiya taraakumiyya taraakumku waxa la yiraahdaa waa shay in yar u yimaado waay sooma in yar buu dhismaa wax soo booda ma aha طيب waa wax in yar u dhismay marka waxaan rabnaa dhismahaasi dhismaya inaynu kolba wax ku darno hal dhagax ku dar hal dhagax bulkeeti kaliya adiga ku soo dar faaraxna hal bulkeeti ku daro jaamacna bulkeeti kala ku daro marka anaga dhexda keenno qolada soo socotana iyaguna in bay ku darayaan qolada ka dambaysana in bay ku darayaan akhiira marka dambe waxaan gaadhaynaa dhismihii inuu dhamaystirmo laakiin adiguna ma dhisi mawda dhamaystiri kartid ku ka horeeyana ma dhamaystiri karo kan soo socda kugu xigana ma dhamaystiri karo laana dumitaanka meesha yaala dumitaan culus ah dumitaan aad u culus waa wax in la dumiyo way fududahay laakiin dhismuhu fududiya gurigan hadda aan ku jirnay intaas oo dabaqa sakana gudahood baa dhulka la simi kara soo saasma laakiin ma la dhisi kara sakana miya lagu dhisi kara maya waa inuu waqti qaato aadamuhu ma gaadhin inuu waqti kooban wax ku dhiso laakiin wuxuu gaaray inuu waqti kooban wax ku burburiyo marka dal iyo dad muddo dheer burburayay dhismihiisu muxuu baahan yahay waqti dheer buu baahan yahay qadiyad taraakumi u baahan yahay qadiyad la kala dhaxlo u baahan yahay qadiyad waqtigeeda qaadato u baahan yahay Soomaa saas daraadeed waxaan idin leeyahay haniyad jabina diinta iyo adduunyada isla qabta midigta iyo bidixda ku qabta ummadana ku hogaamiye